daawade ku soo dhawow channelkeena Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe saar channelkeena gambaleel kala furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub warma ninka gool haye xitaa aan tabar ku gaar una lahayn maxaa Manchester lagu haystaa war Manchester oo ninka meelaad noo lingaadeenaysan maalin kasta Lingard wariya wiilka lagu qasaaray arkan waa lagu qasaaray baa lagu leeyahay Lingard aamad uu leeyahay ma jirto waxaan ku sheegi doonaa khubanayaal xisaab badan oo sportiyo laga qoray ciyaaraha isbuuca kan baan wax kaaga tilmaami doona oo la yaab laha oo uu qayb ka yahay gool hayayaasha xitaa ayaa anu gaarin baa lagu leeyahay wiilka Manchester ciyaare ee Jesse Lingard ninku waa laga yaabay waxa soo maray 12 bilood oo aad iyo aad u shoog badnaaba soo maray baa lagu leeyahay ninkii kale uu dhashay hadaba waxaanu eegi doonaa Jesse iyo warbixino kale ku saabsan ciyaaraha waxana haddii aad channelka cusubtaan ka codsanayna noo subscribe gareyso si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha Ben Foster waa taqaanin waa gool haye ayaa lagu leeyahay xilli ciyaareedkan wax uu ka shuud badan yahay ninka lagu magacaabo Jesse Lingard marka la fiiriyo Premier League xilli ciyaareedka ninkan caadi ma ahan waxa weeyaan wuxuu iska ahaa sanad la iska iloobo ahaa midkan Ingiriiska ah Manchester waxa joogo dhalinyaro waxa weeyaan inkastoo bariyahan Rashford ciidamadiisa aan la haysan karin uu aad u cadareynayo haddana waxa jira ninka kan Lingard waa uu kamid yahay ragga taageerayaasha Manchester markii laba mar la doodaba Lingard baa noo jooga Lingard ku leeyihiin haddana Lingard kaas waa ninaan ciidamad lahayn oo loo ciidamadi karin waxa uu ahaa sanad la iska iloobo lagu leeyahay Lingard oo 12 bilood baa soo martay lagu leeyahay ciyaartooyga kan Ingiriiska ah oo aanba waxba ahayn xitaa marka la fiiriyo rekoorkiisa Premier League hal gool lamaanu caawin hal goolna kama dhalin horyaalka Premier League tan iyo December sanadkii hore hal goolna kama dhalin Premier League lagu leeyahay hal gool lama caawin haddana sanadkan baa sii dhamaanaya sanadkan baa sii gabagaba waa ninka dhan ee aanu hal gool caawin ee aan hal gool ka dhalin Premier League muddo tan iyo December oo sanad baa ku dhashay sanadkiiba haddana ku dhamaanay intaas waxa dhan ay dhacayaan waan Lingard aanu haysan qaab ciyaareed fiican waxaanu noqday nin la iska ilaabiyo wax badan awood fiican yaani lahayn waliba ciyaaraha FA Cup mar uu Arsenal la ciyaaray 2019 kiiba yahay halka jeer uu Arsenal yaani gool ku dhaliyay laakiin marka la fiiriyo Premier League wax caawina kama sameyn tan December 2018 wax goolna kama dhalin tan December 2018 oo Premier League wax record uu ku haystay ma jirto marka Jesse Lingard sidoo tahay ayuu haddana mushaaraad fiican ka qaataa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester taageerayaasha qaar waxay leeyihiin waliba waxa qaar kamid ah Manchester taageerayaashu ka cariisayeen ninkan saas u galabka ah ninkan sidaas aan u liita ee aan waxba awood qaab ciyaareedka xun leh ee aan wax taraynin gool ku caawinaynin gool ku dhalin ba haddana heshiis laga siixaya moogta ciyaartooyga Ingiriisku aad baa loo bunbuniyaa moogta wadanka ka soo jeedaan ba warbaahintiisu ay aad u khatar badan tahay oo ciyaartooygu aad loo bunbuniyaa waxa lagu leeyahay ninka sida xaaladiisu tahay ee aan hal gool ku dhalin aanan hal gool la ku caawinayn tan iyo December 2018 aanu goolna dhalin goolna ka caawin Premier League ninka sidaa oo dhan ah ayaa haddana waxa lagu leeyahay heshiis baa lagu beelayaayo heshiis baa la siinaya lagu leeyahay waa waxay taageerayaasha qaar Manchester la yaabay waxay leeyihiin war midka kan waxaad ugu cimaamadaysaan akademiyada kooxda ka soo baxay darteed ugu cimaamadaysaan baa leeyahay yani Lingard wuxuu ka yimaaday akademiyada Manchester uu ka yimaaday war waxa leeyahay ninkan waxaad ugu cimaamadaysaan inta waxay leeyihiin ninkan wax matariya la iska raacdayo ninkan wuxuu keenay mala ninkan wuxuu qalmaa Aston Villa iyo Bournemouth iyo Sheffield iyo waxuu ciyaar u qalmay hal isaga dirinay kooxda uu ciyaartooy nagama raacinay sanadka 2019 baa gabagabo dhamaanaya inta sanadkan oo dhan uu jirina tan gool lama dhalin gool lama caawin Premier League waxba ka sii yaabanaya gool hayaha Ben Foster ay hadda noqotay laba bardhigo markay kubadda cagtu wax weeyaan waa lagu maadeysanaya kubadda cagtu wataan hadda ku sheeray hadda kor ku waa kaftan waa wax lagu baashaalo wax lagu qaraaxisto ya markaad guuleystaa lagu cimaamado wax kale laga dhigo marka ma taqaan ka talna ha lagu maadeysto hadda waxa uu leeyahay gool haya Ben Foster hatta ma gaar uu leeyahay ninka kanu wax target hatta sanad ciyaareedkan hal gool oo target hatta Premier League kama sameyn baa leeyahay waxa jira shuudad target ah oo Premier League laga sameeyaa hatta kuma gaar lagu leeyahay gool hayaha kan uu ciyaara kooxda kubadda cagta Watford Ben Foster ayaa waxa lagu leeyahay xilli ciyaareedkan kulankii Chelsea iyo Watford ay ciyaariyeen intuu gool hayaha kooxda Chelsea gool hayaha Ben Foster intuu soo baxay ayaa waxa uu ka dhalin gaaray gool Chelsea markaas ayuu badbaadiyay Keba badbaadiyay mooyaane yaa goolka ugu dhalan lahaa gool hayihii marka ayaa intuu soo baxo gool
target sameynaya halka ninka la yiraahdo Lingard aanun xataa hal goal oo target xataa ka sameyn xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League waxay noqotay marka ninka dhan ee Manchester u ciyaara waxa maanta la joogaa xilli in goal haye laba bardhiga bay joogtaa maanta goal haye xataa gool hayaashii goolka ku jiray ee aan maantana goolkooda ka soo baxayn ee aan goolna shoodi karin oo aan banaanka ka dhalin karin ba intay soo baxaan gool raadinaya marka waxa uu leeyahay dhanka targetka imise target ayuu sameeyay xilli ciyaareedkan ninka la yiraahdo ninkan Lingard waxba ma sameyn marka loo barbardhigo gool hayaha kooxda kubadda cagta Watford Ben Wester ya ninka ka waa Foster waxa uu sameeyay hal shoot oo target xilli ciyaareedkan Premier League buu sameeyay lagu leeyahay waxaanay taas timid in Foster uu sameeyo markii habeenkii Watford iyo Chelsea ciyaarayeen xilli ciyaareedkan oo Watford gool lagu lahaa buu intuu gool hayu soo baxay buu madaxa akhru sac soo doontay xilliga dambe ciyaartu madax soo doontay madaxii markuu galay baa waxa soo badbaadiyay gool haye Keba badbaadiyay mooyaane wuxuu ku dhawaaday Foster inuu goolka ka dhaliyo Keba oo isagoo gool hayu soo baxay uu target sameeyo madaxa laakiin waxa uu leeyahay xilli ciyaareedka marka la fiiriyo ninka la yiraahdo Lingard afar shoot uu ka sameeyay xilli ciyaareedka horyaalka hal gool oo target ahna ma jirin يعني أفر شوط موسمي بل سمجرته هل جول أو تارجت أهم جرو مركب وحلو ليه هي نكى لينجارد ها مرضى كذا عضي ومرضي سجاد مسارنا مرض الله وي كلا تاي مرضى كذا عضي محمد غردن كل هي ومرض عضي لكن لغب سكر معناه أو بري مركب بدي صورت كسو خمس كسارن كرتو لكن مركب كلها هي مرضى وكذا عضي ومرضي سجاد مسارنا مركب كلها وحي كده جنت هاي مركب أديكو جد كجوجا أو ضد كلام قوة أركا يا مركب مرضو كذا عضو oo maradii markay geed ka saaranto ya waxaad dhigi kartaa wargeed ka soo qabsay hor ka duwaasili kartaa laakiin maradan geed ma saaran markay kariinta waxay ka dhigan tahay waad ceeboweysaa waana lagu wad arkaya ilaa marada ma soo qabsan kartid oo geedka ma ku saarno yani marka waxay warkii ka dhigan yahay Lingard maradana waa ka dhacday xataa maradiisu geed ma saarno maradiisu geed ma saarno intuu ka soo qabsado hor iska dadi karo ma ahan يعني مركز dadka ku wada arkayaan oo lagu wada fiirinayo arbaradii sodog sanaysa ninka mariis tageed ma saarna ma soo qabsan karo war waa ninka gool haye ka target baday xilli ciyaareedkan isagu wax target oo gool xataa ma sameyn gool hayiba intuu soo baxa target sameynaya taariikhda Premier League-na waxa jiray gool hayayaal inta ay soo baxeen gool ka dhaliyay Premier League waba lagu yaqaan gool hayaasha soo baxaan gool hayaash waa lagu yaqaan Premier League inay gool laliyaan sababtaas darteed buu Ben Foster intuu soo baxay ayuuna gool lali karay ayuuna gool dhalin gaaray hadaba gool hayaasha Premier League gool ka dhalin ku sheega taariikhda waan arkay doonaa maanta gool hayaal waxa jira tirayar baa jira oo taariikhda Premier League gool ka dhali baa jira waa gool haye Peter Schmeichel waa taqaaniin oo aabaha Schmeichel ka hadda Leicester u ciyaara gool haye hor Manchester Peter Schmeichel wuxuu ka dhaliyay gool Premier League Brad Friedel wuxuu ka dhaliyay gool Premier League Paul Robinson wuxuu ka dhaliyay gool Premier League isagoo gool haya Tim Howard isna wuxuu kamid yahay goolayaasha goolka dhaliyay Premier League ay Asmar Bogovic isna wuxuu ku jira dadka gool ka dhaliyay Premier League marka goolayaasha ayaa taariikhda Premier League gool ka dhaliyay marka waa macquul weyn bay ku dhawaatay inuu Foster intuu soo baxay isna gool dhalin gaaray marka waxa lagu leeyahay 12 bilood oo waxa la soo dhaafay oo ninka Lingard la yiraahdo la iska ilaabay ونن عمامد لهين وانك حل عيارات كان أفر شو سمي وأنا هالك مدنا تارجت هين وانك تن ديسمبر لبادي كنت مزديد إلى هذا هالجول عنون عاون بريمير ليج هالجول عنون دالين سنة كلا وقت مسألة وسيد معنا يا سنة بعد معنا يا وليبا وانك وتارجت كحتى كروي هاي جول هايها فوستر marka ninka la yiraahdo Lingard Premier League marada ugu dhacayso waa ninku aad iyo aad ba ay marada ugu dhacaysaa من كنا تاجرياش ليفول أي أقول باقي يسيدو ماني إن وكده يزدو سواريز أو هذا كور مركي لجو عاي متخانة إنه يسيهني استورتورة يا أو يعني رجال بين رادين يا بو متخانة مركو جول اللي ما أنت مركي قدام بيجي والله وقت منودي بحسمي ده بلدقي استورك يعني استورتوركا أو يعني غيانة ده أيو سمي ما دام توات كان جوارديولا ويري ماني واللاعب لكنه واللاعب استوري هذا مركي خار جول اللي يابل الله يحلي كده ما تكعيارته ويري مركي خار ماني واستورتورة mararka qaarna wuxuu leeyahay xirfad uu gool ceenkan oo kala dhamaadka ciyaarta u dhaliyaa yaani Guardiola wuxuu duray Mane oo ku tilmaamay inuu yahay nin isturtura haddana wuxuu ku tilmaamay nin xirfad badan oo xilliga todobaadkan oo kale gool lanaya tayrash Liverpool waxay codsanayaan oo ay leeyihiin war Mane waxaan ka codsanaynaa bay leeyihiin sidoo hadda ka hor Suarez oo kale sameeyay Suarez markii lagu eeday inuu isturturo ba waxuu sameeyay inuu yaani markuu gool laliyay uu u dabaaldegay istur micnaha oo uu sameeyay dabaaldegii isturturka markaas Moyes baa ku caayay Suarez inuu yahay nin isturtura markaas buu intuu ka hor imaaday kooxda kubadda cagta Everton Suarez baa intuu markuu gool ka dhaliyay buu mataqaana istuuray markuu ku dabaaldegay isturku uu ahaa waxay leeyihiin hadda Mane ninkii ahaa Klopp ninkii Guardiola sidaa uu ku yiraahdayo adina mataqaana markaad gool ka dhaliyay isturti baa leeyahay macnaha oo ku maadeysay Guardiola mar Guardiola wuxuu yiri ninka la yiraahdo Mane wuxuu leeyahay xirfad buu leeyahay marka qaar uu istuuraa
marka qaarna xifad buu leeyahay inuu gool ciniga dhaliyo yani wuxuu leeyahay ciyaartoodka ka hor war ninka isturtur naga ilaaliyo buu leeyahay marka Javier Liverpool waxay ugu baaqeen war ninka la yiraahdo Maneyo wayna sameeysaa sida hadda ka hor uu Suarez ku sameeyay Moyes aduna ku sameeyay leeyahay Guardiola kaas oo todobaadka ku yiri waxa tan isturtura xilli todobaadkan Mane la weydiiyay hadii Ronaldo iyo Messi kabtooda u gali karto wuxuu yiri Mane nimayo uu kabta say gelin buu yiri micnaha labadaas nin waa laba nin ee tagaye yaanan kabta la gelin buu leeyahay waxa uu yiri labada ciyaartoy waa laba ciyaaryahan oo tagay hal laga siiba kabta buu leeyahay marka waa kaayo Mane waxa la sugaya haduu u jawaabi doono ninka la yiraahdo Guardiola markuu isbuuc cadama gool ka dhaliyo sidii Suarez hadda koor markii lagu eeday inuu isturturo uu ku dabaaldegay Everton isaguna maadaama Guardiola ku eeday inuu isturturo Mane markuu gool ka dhaliyo waxa la yahay isku daba sida oo kale isaguna ha isku tuuro sidii Suarez oo kale Guardiola marada ha karido